Saado Cali Warsame oo muddooyinkii ugu dambeysay laga warsugayay inay soo gaarto wadankan si ay bandhig faneed ugu qabato 29 bishan oo ku beegan maalinimada Jimcaha ayaa waxaa si weyn garoonka diyaaradaha oo diyaaradii ay la socotay xalay fiidkii soo caga dhigatay ku sugayay dadweynaha Soomaaliyeed oo aan u kala harin iyo qaar kamid ah dadka wadankan u dhashay ee Hollandeeska oo iyaguna si diiran u soo dhaweynayay Saado Cali Warsame taasoo muujinaysa inaysan ugu kala harin soo dhaweynta Saado Cali Warsame. Saado waxay ka mid tahay fanaaniinta ay dadka Soomaaliyeed sida aadka u jecel yihiin waana mid muujinaysa inay maanta garoonka diyaaradaha Isqiibil ay ugu tageen qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee wadanka ku nool si ay u arkaan isla markaana ugu muujiyaan dareenka farxadeed ee ku soo dhaweynayaan waxaana goobtaasi lagu arkayay dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka kale u dhashay wadanka Holland oo wada ruuxaya calaamada wadanka Soomaaliya iyo wadanka Holland kuna muujinaya inay Saado si wada jir u soo dhaweynayaan. waxaan halkan ummadda Soomaaliyeed uga soo jeedinayaa inay sida Saado oo kale ay wada noqdaan oo ay ciidoodii hooyo iyo dhaqankoodii ay dib uga fakeraan waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed ku guubaabinayaa iyo ummadda Soomaaliyeedba inay Saado garab istaagaan oo aanay Saado ahayn gabadh maxay hayto dhinac u xaglisa ee ay tahay gabadha kaliya Soomaaliyeed qarankeeda u dhimata waa hooyo Soomaaliyeed sacdaaliyo sahan aad u weyn safar dunida ugu baxo dad baa soo dhaweeyo sarajooga ugu taga dadna way ka seexdaan waxba kuma saleeyaan sarbeebta aan leeyahay waxaan uga saleeyahay Soomaalida ku nool Holland ee saafi urku wada yahay soo dhaweyn kalgacal سوري عادو قروح بدن بيكوجو السلام اسهدوا سادة علي ورسمة waxay dhigaysaa masrax faneed ay ku dhigayso wadankan magaalada Rotterdam 29 bisha October ay joogeen dadweynaha Soomaaliyeed ee daawan doona waxaanu ogeysiinaynaa inay ka soo qayb galaan fankaas qiimaha badan. marka laga soo taga hadallada dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi joogay ayaa dhinaca kale waxa ayna halkaasi ka hadashay Saado Cali Warsame fanaanada qaranka Soomaaliyeed ee imika soo gaartay wadanka Holland iyadoona muujisay dareenka soo dhaweynta ee aan loogu kala harin in loogu horyimid garoonka Isqiibil ee magaalada Amsterdam. aad baad u mahadsantiin aad bay farxad gelisay soo dhaweyntiinu aad baan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba waxaan leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay qalbi wanaagsan iyo wanaagsan baan idin ku imid Holland waa magaalo ummadda degan Soomaaliyeed ay hore uga mareen qabiilka iyo qabyaalada waa ummadda isku mid yihiin marka waxaad tihiin dad ku dayasho mudan ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogaanba Yurub iyo Ameerika iyo shanta qaarood meel joogaanba inay Holland Soomaaliyeed ku daydaan baan jeclaan lahaa Saado Cali Warsame oo inta badan caan ku noqotay inay si weyn u taageersan tahay dagaalka ka dhana dawladda Itoobiya ee ka jira gobolka Soomaali galbeed ama dadka qaar ay u yaqaanaan Ogaadeniya ayaa waxay jaaliyadii soo dhaweysay ka codsatay in si weyn loo taageero dagaalkaasi oo ay ku tilmaantay inay ku jirto midnimada dalka Soomaaliya waxaan idin leeyahay taageera halganka Ogaadeniya ogaadeenyoon xoroobin Soomaaliya xoroobi mayso ayaan idin leeyahay amxaaradii inagana maskaxda inaga haysataa ogaadeenyana dhulkii bay ka haysataa marka waxaan idin leeyahay isbarbartaaga walaaladiin xornimadooda iyo halgankooda waxaan idin leeyahay idinku diirsadaan ayaan idin leeyahay guulaysta calankaana waligay ayaan sidayaa inta aan noolahay waa dhiigayga iyo dhuuxayga ma sha Allah marka guulaysta Abdiwali Ibrahim Garyere Universal TV Holland.